qur-aanku waa qiimo badan yahay inuu qiimo iyo karaamo badan yahayna allihii soo dejiya ku hadlaa tilmaamay innahu laqur'aanun kariim qur-aanku waa mid karaamo iyo sharaf badan qur-aankaas karaamada iyo sharafta badan leh qofka xambaaraana wuu karaamo iyo sharaf badan yahay siduu qur-aanku kariim u yahay ayaa saaxiibkiisa xambaarsanna kariim u yahay waxaan leeyahay karaamada qur-aanka aynu garanno ehelkiisana aynu karaamayno oo sidaynu maanta u nahay aynu u dhaanno qur-aanku waa cadiim oo waa weyn yahay qul huwa naba'un cadiim antum canhu mucriduun allah waxau yihi waxaad ku tidhaa nebi allow qur-aanka warkiisu waa weyn yahay laakiin waad ka sii jeedaanoo weydaan usoo jeedin weynida qur-aanka aynu dareenno aynu u soo jeedsanno aynu xambaarno oo midigta aynu ku qabanno bidixda yaynaan ku qaban maanta waynu ognahay midigta waxaynu ku sidanaa adduunyadii baynu labada gacmood bay isugu geyni ka ugu roonina waa ka qur-aankii gacan bidixeeye bidixda ku wada laakiin waxaynu u baahannahay qur-aanka midigta in lagu qaado maskaxda iyo maanka madaxa dushiisa la saaro hada alqur'aan sharafkeenna iyo cizigeennaa ku jira haddaynu raacno haddaynu ka baydhnana waa ku dulloobanaa laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaan idiin soo dejinnay kitaab sharafkiina uu ku jiro ee miyaydaan caqli lahayn hada alqur'aan ilaahay waa ka uu kor inoogu qaadayo haddaynu tacaaliimtiisa ku toosnaano waanaynu ku dulloobaynaa haddaynu axkaamtiisa ka baydhno in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkaa dad buu kor ugu qaadayaa qaarna hoos buu ugu dhigayaa oo waa ku dulaynayaa hada alqur'aanu alcadiim sharaf buu leeyahay bal huwa qur'aanu majiid fii lawxin maxfuud hada alqur'aan waa cadiim walaqad aataynaaka sabcan min almathani walqur'aan alcadiim nebi maxamedow waxaanu ku sinayba allahu yihi subxaanah 7 kuwa la soo celceliye ah waa suuratu lfaatixa wa acdamu suuratin fi lqur'aan walqur'aan alcadiim iyo qur'aankii weynaa sheekh ibnu cuthaymiin waxau yihi calayhi raxmat ullah aayaadkaas ka warramaayo weynida iyo sharafka qur-aanka ma intaasunbay ku eg tahay mise macno ka dambeeyo oo lagala soo baxayaa jira wuxuu yihi intaasun kuma eka laakiin qur-aanku waa weyn yahay sharaf buu leeyahay waa kariim macno ka dambeeyaa jiro laga istimbaadayo macnaha ka dambeeyaa waxa uu yahay siduu qur-aanku kariim u yahay siduu qur-aanku majiid u yahay sida uu sharaf iyo karaamo u leeyahay ayaa ummaduna hadday qabsato sharaf iyo karaamo u yeelanaysaa waxa uu yihi sheekhu waxaa tusaale tahay inoogu filan ummaddan awalkeedii iyagoo dulaysan oo cagta hoosteeda la geliyo on waxba laysaga tirin markay qur-aanka qaateen waxay noqdeen qaadat alumami waalcaalam kuwa umamka iyo caalamka hogaamiya sharaf iyo cizi bay yeesheen halabada iyo adkaanta iyo awoodda sare ayay heleen waa ummadda awalkeedii hore maxay ku heleen qur-aanka markay qaateen wuxuu yihi ummaddan aakhirkeeduna hadday qur-aanka qaadato cizigii iyo sharaftii wuu usoo noqonaya ummadda maanta cagta hoosteeda la geliyey cirka ayay gaadhayaan hadday qur-aanka qaataan xaqiiqaduna waa taas walaalayaal naxnu ummatu lqur'aan ummaddii qur-aankaynu nahay haddaynu qur-aankaa ku toosnaanana waxbaynu noqon haddaynu ka baydhnana waynu dulloobi waxaan aada iyo aada ugu celcelinayaa qur-aanka aynu qiimayno goobta lagu hayo aynu qiimayno macallinka xambaarsan aynu qiimayno ardayga dhiganaya aynu qiimayno kitaabka uu ku qoran yahay aynu qiimayno markaasaynu qiimo yeelanaynaa haddii kale bilaa qiimaynu noqonanaa